Somaliland waxaa ka socota diyaargarowga xuska sanad guurada 34aad ee 18 May oo ku beegan markii ay Somaliland dib ula soo noqotay madax bannaanideeda 18 May 1991. halkani waa garoonka diyaaradaha ee magaalada Boorama waxaana ku sugan ciidamada kala duwan ee qaranka oo sameynaya dowladaha ay ugu diyaar garoobayaan weynaynta maalintaasi qaran. gudoomiyaha gobolka Awdal Maxamed Xasan Jaamac Xoday iyo mas'uuliyiin kale ayaa kormeer dhiirigelin ugu tagay ciidamadaasi oo ciyaarayay gaarta ka ciyaar ay ku muujinayaan qiimaha ay Somaliland u leedahay 18 May. maxamed xasan jaamac xoday gudoomiyaha gobolka Awdal ugu horeyn la hadlay ciidamadan ayaa bogaadiyay diyaar garowga ay ugu jiraan qiimeynta iyo kor u qaadida maalinta qarannimada Somaliland ee 18 May waxaana ugu baaqay inay si laba jibaaraan dadaalkaasi.